أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما. gabadha muslimadda ah maxaa laga rabaa maxay qaban kartaa duruufta nololeed cusub hadda joogta maxay u saamaxaysaa ama maxay u ogoshahay haweeneyda muslimadda ah waajibaadka kale saaran waxa uu horeeya waajibka qoyska ma dhabba in badan baa mala lagu celceliyaa gabadha guriga joogta inay tahay gabadhan bulshada waxba u haynin waxayntu ma marka computer la sameeyo ama gaadhi la sameeyo ama dayuurad la sameeyaba soo marka bini aadam la dhalay la soo saaray la koriye la keeno bulshada iyama u faa'iido badan waxa la hubaa inta aynu arkayno dunidan korkeeda waxaan saaranayno la dhaqmayno bini aadamka ugu qaalisan qofka bini aadam dhalay ee koriyay ee keenay bulshada ku soo daray iyo qofka bulshada dayuurad u sameeyay ama taangi u sameeyay gaadhi iyo ma bulshada wax u qabtay labaduba waxbay qabteen iyama roon waxaan oran karnaa waxa roon warshada bini aadamka soo saarta ka roon warshada biraha soo saarta warshada bini aadamka soo saarta ka roon warshada dayuurada soo saarta فقل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المرأة المسلمة موضوعا كسابسا إنسانكو رب سبحانه وتعالى الدين توسود شيء مسلم كاهي وحيرو إلهي كلا صاعم ويعني اسكو سبا الله هضليا بني آدم كان أدوات كيسا اسبدلي بني آدم نمديسو انت بدن اسمه بدشو قبرنا مسلمات دا محال لغا رباه maxay qaban kartaa duruufta nololeed cusub hadda joogta maxay u saamaxaysaa ama maxay u ogoshahay ugu horeyn qof kastoo muslima wadiifatuhu al-ula ama shaqadiisa koowaad waa rabbigii inuu caabudo subxaanahu wa tacaala xaqa cibaadatihi. النبي عليه الصلاة والسلام وحصر راعي معاذ بن جبل ودمير النبي فوشنا الله صفولي isagoo nabi maxamed oo rasuulkiya oo ummadda madaxdeediya tawaaduciisa dameer buu iska fuushanaa dameerkana weliba kalima fuulaynine qof labaad baa la fuulayay dameer laba qof wada saaran tahay معاذ بن جبل وحويدي النبي عليه الصلاة والسلام معاذ يري يا معاذ بكيري ورمعاذ معاذ جواب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبيك له نبي قام مصيح هدنا وحبكم أورنين عبار مركي السعودية وهدنا مرك لو يري معاذ
waa u jawaabay waxba nebigu uguma sheegin calayhi salaatu wasalaam cabaar baa haddana la socday cabaar markii la socdo mar saddexaad nebigu la hadlay calayhi salaatu wasalaam yaa mucaad uu ku yidhi yaa mucaad ibnu jabal labayka buu yidhi wasacdayka yaa rasuula allah su-aalahan waxaynu odhan karnaa waxaa laga faa'iidayaa ku celcelintuu nebigu ku celceliyay mucaad inuu si fiican u dhegaysto inaanu warka nebigu dhaafin isagoo mashquulsan ama wax kale ka fakeraya isagoo wada dhega ah oo isla talow nebigu muxuu kuu sheegayaa in warka kan loo sheego wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaadow xaqa ilaahay addoomihiisa ku leeyahy ma taqaanaa ilaahay xuquuqdiisa uu addoomaha ku leeyahy ma taqaanaa allah warasuuluhu aclam buu ugu jawaabay alliya rasuul baa garan dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa inay rabbi keligii caabudaan oo aanay cidna ugu shiriik yeelin qaacidadaasi waa qaacida caama waa xaqu llahi cala alcibaad waa rabbi subxaanahu wa tacaala addoomaha xaqa uu ku leeyahay ilaaha ku nooleeyey ee ku arsaaqay ee ku abuuray ee ku caafimaadiyey ee ku wanaajiyey wuxuu xaq u leeyahy inaad ku tidhaahdo thanks rabba waad mahadsantay mahadintiisuna waa inaanad wixii uu nimco ku siiyey isaga aad ku caabuddo inaad isaga kaga hor imanin wixii uu ku siiyey waa shay ay wadaagaan rag iyo dumarba qof kastoo muslimi marka alwaajib alawal gabadha muslimadda ah saaran ee ninka muslimka ah saaran ee ilmaha yara muslimka ah saaran ee qofka weyne gaboobe muslimka ah saaran waa maxay waa inuu rabbigii caabudo cibaadadu xaq u leeyahay haweeneyda muslimadda ah waajibaadka kale saaran waxaa u horeeya waajibka qoyska in badan baa malaa lagu celceliya xaqu sawj uu ku leeyahay gabadha laakiin taa ka hadli maayo bulshadu laba qaybood bay ka koobantay rag iyo dumar casriga aynu hadda joogno waxaa maqashaan wax la yidhaahdo haweentii waa la shaqo tiray ama waa la dulmiyey marka la yidhahdo dulmiga haweenka lagu hayaa waa maxay wuxuu leeyahay 4 gidaar dhexdood baa lagu xidha haweenaydii kama qayb qaadanayso horumarinta waddanka kama qayb qaadanayso dhaqaalaha samayntiisii kama qayb qaadanayso siyaasadda tan kama qayb qaadanayso thaqaafada caalamka aynu maanta joogna taalla waa kaa thaqaafadaasi waxay sheegaysaa ragga iyo dumarku inuu loolamo oo raggaa wax dulmiyey markaa dumarku inay iska dhiciyaan sida qura isaga dhicin karaana waa maxay waa meelaha go'aamadu ay ka soo baxaan inay dumarku gacanta ku dhigaan oo ah baarlamaanada iyo madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaare talada ummadda inay gacanta ku dhigaan markaas bay xuquuqdooda dhacsan karayaan haddii kale waxaad rabtaan gabadhu inay madbakha iyo sariirta ka dhaxayso oo sida la rabo in loo sawiro ima inay wax kariso oo madbakh ku jirto haddii kalena inay qolka hurdada joogto gaar ahaan dadkiina muslimiinta intaasaa la rabtaan fama waajib almar'a almuslima baynu isweydiinaynaa althaqaafa almucaasira maanta nooli saasay u fakeraysaa waxaanay u aragtaa inay dulmi tahay dumarka la dulmiyey waa maxay waajibka gabadha muslimadee tijaaha ka saaran ama meeshan ka saaran umamku waxa ay ka fakerayaan ummadda horumarinteeda socay ka maaha dowladda nidaamka systemka waxbarashada waxoo dhammi wuxuu u dhisan yahay in bini aadamka la horumariyo su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan waxaa la hubaa gabadhu hadday qaybtan kale ka qayb qaadato waa bashar wax waa ka qaban kartaa
waxna waa soo kordhin kartaa laakiin ma faa'iida bulshada ugu jirta mise uguma jirto su-aashaan isweydiinayna waxa weeyaan in bini aadam la soo saaro qofku juhdiga iyo shaqada uu qabanayo productkaasi waxa ka dhasha inuu noqdo qof bini aadama iyo inuu noqdo dayuurad ama taangi ama computer ama madfac iyo ma bulshada u roon iyo ma si faa'iido badan yani suuradu sida loo dhigayo caqliga bini aadamku waa meesha wax laga tusiyo waayo kuwan dhagaxa caabudayaba si unba wax loogu sheegayo la yidhi meesha ba wax ka dambeeyana ku jiraan caqliga bini aadamku sida loo tawjiihiyo ma dhabbaa markaa gabadha guriga joogtaa inay tahay gabadhaan bulshada waxba u haynin waxayntuma marka computer la sameeyo ama gaadhi la sameeyo ama dayuurad la sameeyaba mise waa marka bini aadam la dhale ee la soo saaree la koriye ee la keeno bulshada iyama u faa'iido badan waxaa la hubaa inta aynu arkayno dunidan korkeeda waxaan saaran aynu la dhaqmayno bini aadamka ugu qaalisan qofka bini aadam dhalay ee koriyey ee keenay bulshada ku soo daray iyo qofka bulshada dayuurad u sameeyey ama taangii u sameeyey gaadhi iyo ma bulshada wax u qabtay labaduba waxbay qabteen se iyama roon waxaan odhan karnaa waxa roon warshada bini aadamka soo saartaa ka roon warshada biraha soo saarta warshada bini aadamka soo saartaa ka roon warshada dayuuradaha soo saarta ciddii isweydaarisay ee tidhi rag iyo dumarba taangiga ha sameeyaan rag iyo dumarba dayuuradaha ha sameeyaan rag iyo dumarba kombiyuutarada ha sameeyaan in badanoo ka mida way dhacday labaduba inay dayuurad iyo combyuutar iyo taangiba soo saareen dumarna waa sameeyeen ragna waa sameeyeen laakiin bulshadoodii way khasaartay maanta waxay qorayaan dadayooga reer galbeedka oo ixsaa'iyaata ma aha sheeko iyo wadaad wuxuu sheegay maaha waa ixsaa'iyaadku waa statistics waa tiro koobiyo xaqiiqo oo tilmaamaya yurub way sii yaraanaysaa ama ninka cadi wuu sii yaraanayaa wuu sii gaboobayaa wuu waxtar yaraanayaa bay leeyihin dagaalkii labaad ee dunida wixii ay kaga baxeen Germany iyo Faransiisku tiradii waddanku ahaa tiraduu iminka yahayba ka yar ummadan 50 sano korba u korin ka waran hoos u socota waxay leeyihiin wadannada inta xool la sameeyo xoolku waa waxan yar carruurta lagu rido darabtan carruurta la saaro inta xool la sameeyo iyo inta taabuut la sameeyo taabuutku waa meydku markuu dhinto sanduuqa yar ay ku ridaan sanduuqa meydka lagu rido iyo sanduuqa yar ee ilmaha dhashay lagu rido yurub waxa badan sanduuqa meydka lagu rido yani dadka dhintaa waxay ka badan yihiin maxay dadka dhasha waddankan ay joogtaan haddii waxa dhasha iyo waxa dhintaa badan yihiin tirada dadku maxay noqonaysaa markaa ta waynay yaraataa ilaa inta ku soo kordhaysa waxa ka badan mar kastaba inta dhimanaysa taa macnaheedu waxa weeyaan waa inay yaraataa waxay leeyihiin da'dii shaqada lagu qabanayay dadka waaweyn baa waxay ka badan yihiin dadka yaryar waqti dhow haddii la sii socdanaba waxay leeyihiin dadka benshanka qaatay aan shaqadaba qaban karin ee fadhiya ayaa waxay ka badan doonaan dadka cashuurta bixiya ee wax qabanaya tamaaneed waxa weeyaan waa ummad gaboobaysa qof gabooba idinku arki jirteen miyaa maqasheen ummaddan oo gaboobaysa waxay leeyihiin ninka cadi wuxuu ku sii socdaa vanishing spices bay yidhaahdaan xayawaanada munqaridka ee dhammaan ayuu ka mid yihi ee intaanu dabargo in hala qabta bay leeyihin in gabadhu dayuurad duuliso oo combyuutar samayso oo taangi samayso oo waxa laga dhaxla inay bulshadu marato oo gabowdo oo yaraataa laga dhaxlay
theory maaha aan leeyahay waa aragti muslimku qabee waxaan leeyahay waa markay kuwii rumaysnaa practically tijaabiyeen wixii ka soo baxay. maanta wax aqoonkoodii iyo dowladahoodii waxay leeyihiin dadka haweenkeenna aan ku qancinno inan walba ayaydeed intay dhali jirtay inay dhasho. hooyadeed maaha, hooyadeed waa qoladii dagaalka gashay ee siyaasadda gashay. marka waxay leeyihiin inantan ayaydeed intii ay dhali jirtay inay dhasho aan ku qancinno. waa ilaa waa marhanaynaa bay leeyihiin. see loogu qancin karaa? feminist group baa samaysmay, jaamacadaha theoriyadan lagu dhigayaa, tviyadii baa ka warramaya, jaraa'idkii baa ka warramaya. dowladihii waxay xoog iyo xoolo lahaayeen waxay isugu geeyeen in wax la dhalo. waayo waxay leeyihin yurub maanta laba qof oo kastoo isqabaa labadii bedeli lahaa ma dhalaan. waddanka dhashiisa iyo guryihiisa marka laysu qaybiya ama dadkiisa, waddan qura ayaa dhala 2.1 soo gaadha, yacni growth kama jire uu ka jira inuu halkiisa joogi karo. waddankaasina bay yidhahdeen in kasta uu yurub ku yaallo waa muslim, waa albania. yurub oo dhami waa 1.3 1.4 1.9, yacni labadii qof labadii bedeli lahaa ma dhalaan. dowladu go-aana bay qaateen markaa gabadha dhasha, maalan anigu waddankan joogi jiray, gabadha dhasha haddaad ilmo dhasho inaad ilmo dhashay baad $5,000 leedahay. waa abaalmarinoo dowladdu ku siinaysa. haddaad ilmo dhasho waxaad leedahay baa la leeyahay sanad fasaxa waad mushaharkaagii 80% qaadanayso. waayo ilmahaanu rabnaa inaad koro bay leeyihiin oo uu bulshada ka mid noqdo. marka si aad ilmaha u koriso ood bulshada uga mid dhigteed, mushaharkii aad qaadan jirtay meel kastaba ka shaqeeyo 80% ha kuu socdo. waxay dhahay ma ilma hadduu dhasho si loo dhiirigeliyo odayga laftiisu bil fasaxuu u baahan yahay bay yidhahdeen. odayga aan waxba dhalin isagu isna wuxuu u baahan yahay si uu caawiyo bay leeyihiin islaanta ilmaha dhashay ee bulshada wax ku soo kordhisay. waxay tilmaamayaan yacni mantaqa iyagu yaqaan siday u fakeri jireen ee ahayd in maal wax lagu horumariyo la wado ayaa la rabaa in la dhiirigeliyo. dowladihii iyo nidaamkii waxay leeyihiin ha la guursado, waxa la dhalo, laakiin dadkii ma rabaan. su-aasha markaan idiin sheegaya waxay tahay ama idin weydiinayaa, dadkii tajribeeyey jawaabtan bay hayaan. innagana maanta thaqaafadii baa dib laynoogu akhrinaya, waxaa la rabaa inaynu la mid noqonno. iyagu markay dhali waayeen waddannadoodii waxay leeyihin way burburayaan. sidaa awgeed aan qaxoonti qaadanno. qaxoontiga malilaahi baa loo qaataabaa u malaynaysaan. maxay u aqbalayaan dadkan? waa dad dhallinyaro ah oo xooggan oo shaqayn kara oo wax dhali kara oo thaqaafadda dhalmada ah rumaysan oo bulshada wax ku soo korin kara. halun bay ka cabsi qabaan dadkani armay culture-keenna bedelaan. ha lagu dadaalo sidii ama loo gaalaysiin lahaa ama fikradda loo qaadsiin lahaa ama caynkan waa in xaggaa loo dadaalaa. laakiin soo dayntooda waa in la soo daaya. waddan waliba intii uu baahanya markuu qaatana wuu joojiyaa. waxa la dhahaa waddan hebel sharci lagama bixiyo, waddan kalaa laga bixiya, ka kalaa dadku waa cararaa. kaasi intii uu qaadanayay markuu gaadhaa buu joojiyaa. kii horaa fura, waayo dadkiisi weli wax ma dhalayaano. dadka kan lilaahi cidi uma aqbasho. iyo waa bini aadame ha noolaadaan. hadday ka rabaan bini aadam inay nooleeyaan may halkiisaba ku siiyaan, maxay u qaxinayaan? dee la rabo inuu noolaado maa waddanku joogan la horumariyo. maxaa loo boobayaa, loo dhacayaa, loo dilayaa, loo xumaynaya? dee la rabo inuu noolaado suuriya ma suuriya iyadoo joogta wax loo qabto. maxaa loo odhanaya qaxoontigeedaynu aqbalayna qaadanaynaa? waxaan leenahay waajibka labaad ama hawsha labaad ee haweenka muslimadda laga rabaa waxa weeyaan jiil ilaahay yaqaanoo muslima inay soo kordhiso. nin ma soo kordhin karo. cid kaloo shaqadan qaban kartaana ma jirto. cidda qura qaban karta ilaahay ugu talagalay waa haweenka. shaqada gabadha muslimadda ee labaad markaa waxay tahay inay wax dhasho. macnaheedu waxa weeyaan inay noqoto warshadii bini aadamka soo saaraysay. waa ilaa bini aadamku uu dabar go'aya. warshadii basharka haddii warshad taangiya la haysto iyo kombiyuutaradu bini aadam ma noqdaan, dayaaraduna bini aadam ma noqdaan. waxaa loo baahan yahay bini aadam in la keeno.
bini aadamna qaabka qura uu ku yimaada waa qaabka kan shaqada labaad ee laga rabaa waxa weeyaan inay koriso waa hawl adag in la dhalaase waa hawl fudud marka labadaa la isdhinac dhigo dhalista iyo korinta adag dhalistu adiga juhdi kaama rabto ee ilaahay baa qofkan meesha ku abuuray oo wuxuu cunayay meesha ugu geeya oo laakiin inaad korisaa caqli iyo talo iyo mutaabaca iyo xoog bay kaa rabtaa aday kaa rabtaa dunida maanta la joogo waxay ka cabanayaan waxa la yidhaha child delinquency waa junuux اlatfaal waa caruurta dembiilayaasha ah qaanuunka reer galbeedku wuxuu sheegaya qofku 18 jir markuu gaadho ayaa xabsi la geyn karaa la xidhi karaa waa caynkan 15 jiro 16 jiro 17 jiro dunidii waalay see loo gelayaa waa kuwan imanka ogolaaday juvenile prisoners xabsiyada muraahiqiinta 16 hadduu gaadhaha la xidhay bay leeyihin laakiin xabsi gaaro aan xabsiga weyn hayn ee u gaaraha lagu xidho carruurtii way sii xumaanaysaa waxay leeyihin problemku waa maxay mushkiladda koowaad waxay leeyihiin carruurtani imaa inay ku soo kortay meel dadka lagu koriyo مثلا هذه لا دمركو هذا الآن لكن مركي يدشوا بان هاجا هجيسو أما كيندرغارتن مالها عرورتا لغو هيرلوكا يا شقتكتو وحيلين كوي مالها لغو سو كوريي با ugu badan ذنوبتن dadka geystay kuwi ku soo koray ba ugu badan bay leeyeen guri aan labada waalid joogin taamacneedu waxa weeyaan hadii la rabo bulsho hagaagsan in la soo saaro ilmuhu laba waalid oo koriya waa inuu helaa labada waalid inaad 40 caruur lagu yiraahdo hay oo subaxii intaad shaqo tagto 40 ciyaala soo dumaruun maaha waxaynu caruurta la rabno gabar shaqaalada aan qorro 40 ciyaala aan u dhiibno inta laga soo rawaxayaa hayso taasi ma bedeli kartaa la leeyahay hooyada ilmuhu wuxuu ka barto kaba barto qofka dumar ee 40 ka haysa aan dhalinde 40 aan ay dhalin shaqaale ko mushahar ku qaadata kama soo baxo naxariistu hooyadii ka hela kama helo koristu hooyadii ka hela kama helo danaynta hooyadii ka hela ay danaynaysa kama helo man noqdo baa ilaahay psychologically qofkii la rabay idan waxa leenahay hawsha labaad ee bulshada muslimka ah la rabo inay qabato gabadha muslimadii waxa weeyaan inay si gaar ah u koriso ilmaheeda ilma kale ku darkan iyo waxaasi waa tileg waa waxyaabo dheeraado kale laakiin asalku waa inuu ilmuhu ku koro guriga aabihii hooyadii asalku waa inuu laba waalid koriyaan asalku waa in la tarbiyeeyo la rabeeyo gurigoodu ilmuhu ku bartaa cadaaladda iyo tala wadaagga iyo akhlaaqda fiican iyo naxariista waa haddii ay waalidku yihiin waalid soo jeeda ilmaha yar waxaa lagu rabeeyaa maxay soomaalidu inta badan inuu wax cunaa unbaa muhiimadda ah waxa kale wax weyn ma moodaan ilmuhu agtaada ayuu ku gaajooninun hooyadu inta badan taasi ka fakartaa aabuhuna wuxuu usoo shaqaynayaa un ilmahaasi yuu gaajoonin haddii hooyada ama aabbaha la yidhaha ilmaha wuu gaajooday waa naxayaan waa warwarayaan laakiin waxaa ka muhiimsan diinta iyo dhaqanka uu qaadanayo qaabka uu ummadda hadhow ula dhaqmayo haddaad cadaalad rabto gurigu ku baran karaa inagu cadaaladeenna waxa weeyaan oday soomaaliyeed baa la yidhaha carruurtaada ayaad u jecesho kii buka kii maqan buu yidhi kolba ka maqan baan ugu naxdin badnay kolba ka xanuunsanaya baan ugu jilecsanay kolba kii yar buu yidhi anigu saan u kala jeclay waa saddexdan un buu leeyahy kaw yar baan marba u jeclahay marba ka maqan un baan ugu warwar badnay marba ka xanuunsanaya laakiin sida rasmigii waxa weeyaan in loo cadaalad sameeyo ilmaha ka weyn iyo ka yar iyo ku dhaxaba in naxariista la baro in waxa tarbiyada loo yaqaano dhan ilmuhu gurigu ka qaataa waxaan leenahay marka
shayga labaad ee gabadha muslimadda ah laga rabaa bacda cibaadati illaahi subxaanahu wa tacaala waa inay jiil cusub ama dhiig cusub ummadda ku soo kordhiso si ummadda isu beddesho oo horumar uu gaadhi karo waa in jiil cusub isoo koraa maanta thaqaafada galbeedka ka socotaa labadan shay aan sheegayba waa cagsigeeda dadka diin iyo caqiide cidina kuma tarbiyayso way sii lumayaan dhasha dambe iyo siday tahayna waxaa la isku dayay inay dawladdu dadka yeelato oo ilmaha ka fakarto oo cid walba ka fakarto laakiin dawladdii waalid noqon weyde carruurna dhali kari weyde dawladaha sistamada ka dejisani waa sistamo aad ugu eexaynaya carruurta iyo korintooda iyo waxa kan laakiin bedeli kari waaye gurigii hooyo aabba noqon waaye iyadoo ay lacag badan ku bixinayaan oo wax badan eegayaan waa hooyo aabba noqon kari waaye walidaalika ayuha alikhwa bii'a mulawatha baa ku jirtaan yacni la sumeeyey oo tv-gu iyo jariidaddu iyo siyaasigu iyo wax waliba waxay sheegayaan gabadhan madbaxa laga soo saaro gabadhan afarta derbi ku xidhan ha ka soo baxdo gabadhan xuquuqdeedii baa ka maqan ha raadsato gabadhu xaqa ay doonayso markii la tajribeeyey waxay isweydiiyeen gabadhu xaqeedii ma heshay mise may helin iminka guruubbaa jira yurub dib u doodaya oo haweena oo ku doodaya gabadhu gurigii ha ku noqoto ninkana ha la siiya bay leeyihin double wage ama family wage waxay ku tilmaamaan mushaharka ninkana ha loo kordhiyo reerka ha ku filaanka intii la odhan lahaa labaduba ha shaqo tagaan midna carruurta ha haya midna ha shaqo tago laakiin kan shaqaynaya wax reer ku filan ha la siiya bay leeyihin maxay sidaa u leeyihin waxay leeyihin gabadhii baa la dulmiyey oo see loo dulmiyey sawtan wasiiradda noqotay madaxweynaha noqotay ee baankaradda noqotay ee khabiiradda ee brofesaradda ee xaggan joogta waxay dhahdeen gabadha dulmi baa ku dhacay oo laba goor midun bay dulmantay bay dhahdeen imaa inay hooyanimadii iyo xanaankii waalidnimoba weydo waxbaba may guursan ama waxbaba may dhalin madhalays baa laga dhigay intii ay ragga la baratamaysay wakhtigiiba dhaafta guurkaba waxay eegayso ay lahayd haddaan carruur iyo waxaan dhalo dee waan hadhaya xisbiga meel hoosaan ku dhacaya si aan xisbiga u hogaamin karo dawladda u hogaamin karo waa inaanay guri iyo carruur iyo waxaan ku mashquulin dee waa inay xagga hore tagtay madaxweyne noqotay siyaasiyad noqotay waxaan noqotay laakiin waxay leeyihin laba dulmi bay qabtaa imaa bay yidhaahdaan inay hooyanimadii iyo waalidnimadii iyo carruurtii waa fitra ilaahay ku abuuray ay weydo gobla noqotay ama bay yidhaahdeen inay laba shaqo qabato dumarka galbeedka joogaa bay dhahaan inta wax dhalay laba shaqay qabtaan bay dhahaan sida ninkay 8 saacadood shaqo tagaan hadhow guriga marka la soo noqdana 8 kalun bay shaqaysaa bay dhahaan ninkuna uu seexdaa idan gabadha tan laba shaqoon baa la geliyay baa la leeyahay waxba looma kordhin 8 saacadood oo ay xafiiskii ama wasiirad ahayd ama caynkan ahayd ama baan ka shaqaynaysay ama waxaan ka shaqaynaysay yurub dee halkan dad masaakiin aba joogo lagu shaqaystay cid lagu shaqaystaana ma jirto de qof waliba gurigiisa markuu soo raaco isaga dhariga bilaaba cid kaasi horeysa ma jirto ama wasiir noqo ama baankar ahaw ama joog nin waliba isaga dharigiisa bilaaba marka la soo noqdana bay leeyihiin haddii midh ama laba la dhalay gabadha kuwan xafaayadaha ka bedel kori raashinka kari shaqadii gurigana iyada qabataa marka maxaa loo kordhiyey bay leeyihiin laba shaqaa loo diray gabadhuna 16 saacadood bay shaqaysaa bay markaa leeyihiin 8 guriga iyo 8 dabadda ninkuna 8 saacadood buu shaqeeyaa keeba xaq la siiyey keeba se la dulmiyey ninkunba guriga kharashkiisii laga yareeyey bay leeyihiin sida tan ninkaa ku faa'iiday baa la leeyahay gabadhu kumay faa'iidin labaduba markay shaqo tageen dabeetana ay guursatay ninkaa wax kororsaday oo ah xaggana gabadhnimadii iyo carruurtiibuu ku haystaa xaggana lacagtiina labadooduba way soo wada shaqaynayaan marka ninkaa wax kororsaday bay leeyihiin weli gabadhaa dulman saa daraaddeed gruubkan dumarkii waxay ku doodayaan gabadhu waxaa dulmiga ay ka bixi karaysaa iyo qura markay gurigeeda joogto ee ninkuna wixii dabadeed soo qabanaya iyaduna wixii gudeed ay qabanayso markaasoo quray dulmiga ka baxday bay leeyihiin amaa dabaddana ka wada shaqeeya gudahana keligaba ka shaqaynaya xataa ninku hadduu yidhaha waan kala shaqaynaya ma shaqayn garanayo ama ma qabanayo wixii loo baahnaa
mar kastaba ilaahay gabadha tan ayuu takhasus u siiyey inay ilmo korin karto, wadi karto, hagaajin karto oo u nixi karto. hooyadu yani fitrada ay ku kala gedisay waxay dhahaa maskaxda hooyadu multi services bay u samaysantay. kombiyuutarada waatan waxaa lagu kala wanaajiyaa waa inta shaqee uu isku mar qaban karo kombiyuutarka. hooyadu bay yidhaahdaan guriga markay joogto iyadoo dheriga walaaqaysa ayaa midna dacalka haysta, midna ay la hadlaysaa, saddexda shaqaba way wada qaban kartaa bay yidhaahdaan. ninku bay yidhaahdaan laakiin tarkiizun weeyaan, wax qurun buu qabtaa bay leeyihin, caqligiisu isugu tagaa, saddex shaqo mar wada qabta bay yidhahdeen ninka maskaxdiisu. marka hadduu dheriga walaaqa bay yidhaahdeen oo ku yara dacalka qabsado uu iska fujinaya, war orodoo xaggaa fadhiiso i dhaaf buu leeyahy, dherigiisu walaaqanayaa bay leeyihin. laba shaqo ma wada qaban kara baa la dhaha. waa fitradu ku abuuran yahay. waayo waxaa loogu talagalay nolosha dabadeed inuu wax tarkiiziyo oo waxaa qabto. hooyadaas se wada qaban karta bay leeyihiin. saddex carruura in midna dacalka haysto, midna ay saxaro ka beenayso, midna ay cunno siinayso, saddexdabana ay u dul qaadan karto. aabbuhu suurtagal maaha bay leeyihin. hadduu mid shaqo ka qabanaya labada kale waa inuu eriyaa. walidaalika ayuha alikhwa, bini aadamku wuxuu isku dayey in rag iyo dumarka la isweydaariyo oo de ilaa xad ragga badh la leeyahy dumarka laga dhigo. waa caqliga maanta jooga. qaanuunka yurub maanta waxaa la bedelay xeerkii la odhan jiray maxaa familiya, maxaa qoysa, yaa usra ah. laba nin baa usra noqon karaa, laba dumaraa usra noqon karaa, nin iyo gabadh baa usra noqon kara. waxaasaa la wadaa. waa waxaan jirin ee la rabo un bini aadamka lagu cayaaro. gabadha muslimadda markaa waxaa leeyahy waajibka labaadee saarani bacda cibaadat illaahi subxaana wa tacaala waa inay jiil cusub oo muslim oo bini aadama soo saarto. waa waajibuha athani ayaynu leenahay. waajibka saddexaad aan tilmaami karo ee gabadha muslimadda laga rabaa waxa weeyaan inay diinteeda ka qayb qaadato horumarinteeda. hadday dacwo tahay, hadday khayr la sheega tahay, hadday khayr ay barato tahay, inay qabato. oo diintu waa xil muslimka oo dhan saaran. qof kastoo muslima waa xil saaran. xilkaana waxaan leenahay inay gudato ayaa loo baahan yahay. xilkaas si salbiya iyo si iijaabiyaba waa loo gudan karaa. ama aan si kale u tilmaamo, qofka bini aadamkaa bay yidhaahdaan waxa ugu badan ee dunida fasahaadiyey bay leeyihiin ee iyagana la fasahaadiyey waa dumar. maxaan taa uga jeedaa? waxay yidhaahdaan gabadhu nin kastoo caqli badan hadday u xaydxaydato inay lumiso waa lumin kartaa bay yidhahdaan. ninkuna baa la yidhahdaa waxa uu ugu jilicsan yahay dunida korkeeda yaalla waa qof dumara. qof dumara wax kastoo ka tirsani nin way soo jeedin karaan. ahadulculamaa baa wuxuu ii sheegay daraase qoladan galbeedku ay sameeyeen bay waxay dhahdeen caqliga ninka intibaahiisa waxa ugu weyne soo jeediyaa waa maxay? waxay dhahdeen waa xabaasha. xabaal hadduu soo maro bay leeyihiin markaaba qofka bini aadamka caqligiisa ama ninku markaaba uu naxaa. xabaashu thinking bay ku abuurtaa, maskaxdiisa qayb ka mid ah markiiba shaqada bilowda bay dhahdeen. hadduu qof dumara arkana bay leeyihiin markaaba maskaxdiisu intibaah bay samaysaa. dadka lumiya waxay ku talagaleen markaas si mujtamaca loo fasahaadin karo in gabadha la fasahaadiyaa. waa kuwan samaystay waxaan la yidhahaa design engineerskiiyo waxa kan. waxaa la isku dayaa gabadh kastaaba halkay u qurux badan tahay in la muujin karo. qofka bini aadamkaa jidhkiisu isku wada mid maaha. mid baa wejiga u qurux badan, mid baa dhex u qurux badan, mid baa dhabarka u qurux badan, mid baa addimada u qurux badan. si ninka ama mujtamaca loo fasaadin karo stylisku waxay ku salaysan yihiin qof kastaaba halkuu u qurux badan yahay inuu bannaanka soo dhigi karo. maadaama la ogyahay gabadhu inay nin fasaadin karto. tusaale aan idin siiyo, iclaanaadka tv-ga ma daawateen? xayeysiiska kan soomaalidu professional maaha ee shanta maxaa la yidhaahdaa xawaaladood la ysdaba dhigo. isagu maaha iclaan oo iska uun idaacad nin fadhiisto iska hadlaya. professionkan reer galbeed ee ay kaga warramayaan iclaanka waxaan la yidhaha advertisementska
boqolkiiba 80 ama 90 advertisement-ka gabadh baa advertise garaynaysa see u advertise garaynaysa taayiraad arkaysaa la rabo taayirka gabadh qaawan baa meesha soo boodaysa saad gabadha warkaysaa uma taayir soo daba soconaya gabadh iyo taayir maxaa ka dhaxeeya gaadha la xayaysiinaya sida gaadhigii intaan la keenin gabadh qaawan ama gabadh ordaysa ama gabadh baad arkaysaa kadib baa gaadhi ka soo daba baxaya iyada daaqada laga furayo waa fuulay everything la xayaysiinaya gabadh baa lagu xayaysiiyaa waayo waxay ogyihiin ninka soo jeedintiisa waxa ugu tirada badan leh inuu gabadh yahay walidaalika baa gabadha ilaa waxa ugu hooseeya jidhkeeda ay mara ku xidho waa la xayaysiiyaa wuxuu doonaba ha noqdo mara qof dumar xidhato aan la xayaysiinin ma jiro ayuha alikhwa gabadha muslimadda markaa xilka diimeeda saaran waa inay asturtaa hadday asturto mujtamacay islaaxisay weeyaan gabadha hadday jidhkeeda qura asturato macnaheedu waxa weeyaan mujtamacay islaaxisay hadday jidhkeeda asturato macnaheedu waxa weeyaan risaalat alxushma bay bulshada dhex wadaa risaalada xishoodka ah ninku gabadh qaawan hadduu arko markiiba afku la gelaya ilaa walba hungura ka hayay laakiin gabadh xijaaban hadduu arko xataa hadduu nin dhaqan xun yahay waartana waa xidhxidhanta iska jir buu isleeyahay hore uguma dheerayn karo laakiin gabadhu hadday isa soo qaawiso ama isa soo carfiso ama ay samayso nin iyo mujtamac iyo wax walba way fasaadin kartaa idan waxaa leeyahay xilka gabadha muslimadda saaran waxaa ka mid ah inay asturnaato asturnaantu ma aha un inay ilaahay ka baqaysay oo qura ee waxa weeyaan bulshada dani ugu jirtaa bulshadaan fasahaadaynin hadday gabadha muslimadii xijaaban tahay iyagu cagsigay u wadaano waa maxay waa in bulshada la fasahaadiyo marka gabadh qaawan iyo gabadh ordaysa iyo gabadh shaqaynaysa wax walba qof dumara la dhinac wada si bulshada inta kale ay u fasahaado iyaduna hadday shaqadan bilowdo iyana waa fasahaadsantay inta ka soo hadhay mujtamaca nuska kalena way fasahaadin karaysa haddii la rabo in mujtamacu islaaxo waa inay gabadhu wanaagsanaataa haddii la rabo inuu mujtamacu islaaxo ilmaha soo koraya waa inuu fiicnaadaa haddii labadani ay fiicnaadaan macnaheedu waxa weeyaan bulshadani waxay u socotaa dhanka fiican waa bulsho mustaqbal leh oo la rajaynayo tan macnaheedu ma aha inaan leenahay gabadha muslimadii ama cilmi ma baran karto ama ma shaqayn karto ama bini aadamku duruufo kala gedisan wuu leeyahay laakiin duruufuhu waa nawaadir waxna waa bulshada caamkaa waxa loogu talagalay waxna waa cid dhib gaar ah haysataa waxay qabanayso bulshada caamkii qaabkay u noolaanaysa waa inuu qaabkaa noqdaa laakiin waa dhici kartaa qof dumar oo agoon haysata reer aan biilkuba ku filayn ee ku kaliftay ninkiiyo gabadhuba inay shaqo tagaan wax badana waa dhici karaan markaana waxaa laga rabaa hadday qaadato inay shaqo qabatana shaqo xushmo leh oo gabadhnimadeeda ay ku caafimaad qabaysa inay qabato qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa dumar shaqeeyey nabiyullaahi muuse markuu meeshii ka soo baxsaday fircoon iyo kooxdiisii ceel buu yimi laga cabayo laba habloodoo xoolo wata oon xoolahoodii waraabinayn buu u yimi iyo dadkii kaleoo ceelka ka cabaya maxaa idinku dhacay buu ku yidhi waxay u sheegeen inaanay ragga ceelkan kula boobin ee ay sugaan inta laga baxayo markay raggan xoolahooda ka dareersadaan ayaan anaguna kuwa iyaga waraabsanaa bay ku yidhaahdeen wuu u waraabiyey gabdhaha kan waxa kalifay aabahood baa da-ah cid kaloo walaaloo shaqadan u qabatana ma hayaan therefore iyagay keensatay inay shaqeeyaan way shaqaynayaan markaa xoolahoodiina way wataan waana waraabsanayaan shaqadii la qabanaya iyagaa qabanaya laakiin markay jaanis aragtay nin daacada oo wax u qabtay aabaheed way u tagtay si ay shaqadan uga baxdo waxay ku tidhi aabo ninbaa waxaa noo qabtay iigu yeedha buu yidhi nin markuu yimina talay u jeedisa waxay tidhi ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin aaba nimaad shaqaale cidaad inooga dhigto ninkan xoogga weyn le ammaanada fiican leh ayaa u roon markaynu naqaano qur-aanku odaygii inuu soo bandhigay inantiisii inuu u guuriyo nebi muuse calaa asaas inuu 8 sano u shaqeeyo hadduu 2 sano ugu dari karana ugu daro qisada waxaan u adeegsanayaa waa gabadh shaqaynaysay waa qof dumar oo shaqo qabanaysay jiilkii saxaabada markaynu ku noqonno dumar badan baa shaqaynayay nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo soconayo ku soo baxay asmaa binta abi bakar ina abi bakar oo asmaa ah oo waaxid min 10 almubashiriin uu qabo oo dambiil sidatoo ku guratay lafa timireed iyo wax sidata dabeetana neefkii buu u joojiyey uu fuushanayo wuxuu ku yidhi soo fuul
way ka xishootay way diiday mar dambana waxay tidhi zubayr baan hinaasihiisii xasuusta waxaan sidhi nabi maxamed baan ku hinaasayaa buu ku yidhi markaa mayr la raacin maxaad qaba waxay tidhi waxaan u sameeyaa bay tidhi awrna wuu leeyahay farasna wuu leeyahay awrkiisana lafahan iyo waxaan baan usoo guraa u daqiijiyaa cunaan siiyaa faraskiisana anaa maydho uga shaqeeya bay leedahay waa shaqo dabadeed labaduba shaqada anaa qabta bay leedahay isna wuxuu mashquul ku yahay jihaadkan iyo waxaan kale u wado gabadhu way shaqaysaa ina nebi maxamed baa shaqaynaysay oo nebi maxamed u timi calayhi salaatu wasalaam oo u sheegtay gacmaheedii inay adkaadeen oo weydiisanaysaa ilaahay rasuulkiisa iyo waxaad isiisaa qof khaadimo oo ii shaqeeya bay ku tidhi wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wax ka khayr badan ma kuu sheegaa iyadu khaadimay doon shaqaalay rabtay nebiguna wuxuu ku yidhi wax ka khayr badan ma kuu sheegaa waa maxay wuxuu yidhi habeenkii markaad seexanayso 33 jeerna subxaan allah dheh 33 jeerna alxamdu lilah dheh 34 jeerna allahu akbar dheh taasaa kaaga khayr badan culamada badh baa yidhaahdaa qofka laazimo wardiga kani maalintiisa nashiid buu noqdaa qof xooggan oo shaqadiisa xataa qabsan kara ayuu noqdaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inantiisii khaadimna kuma darine xoogse buu ku yidhi waxaanu wardigaana uu baray waxaan uga dan leeyahay markaa gabadh xakiimadii way jirtaa sidii khadiija gabadh deeq badanoo wax bixinaysay way jirtay sidii zaynab intay gacanteeda ku shaqayso wax samayso ayay sadaqadaysanaysay gabadh cilmi badan oo raggu cilmiga u soo doontaa jirtay caaisha cilmi diineedna way taqaanay cilmigii kale waagaa yaalayna way taqaanay dhakhtarad bay ahayd oo cilmiga tibka way taqaanay adiibad bay ahayd oo gabayada iyo adabka luqa alcarabiya way taqaanay waxaasoo dhan inta loo yimaada baa la weydiin jiray oo laga warsan jiray 25 sannadood bay cilmi faafinaysay gabadh masaalixda caamka ee ummadda ka shaqaysaa jirtay asmi waxaynu naqaanaa hijradii wixii ay nebiga iyo abibakar u qabatay calayhi salaatu wasalaam ee daatu nitaaqayn loogu bixiyey gabadh dagaalka ka qayb gashay baa jirtay nasiiba gabadhii la odhan jirtay ghaswat uxud markay dhacday ee muslimiintu ay jabeen dadkii nebiga difaacayay waxaa ka mid ahaa gabadha tan seefteeday sideetay oo nebi maxamed bay difaacaysay ilaa iyo halkan ku dhuftay ibnu qami ah kii nebigana markii dambe soo gaadhay koofiyadan madaxa birta kaga dhuftay oo hoos u gashay gabadha tanna nabar halkana buu ku dhuftay weyn god baa halkan kaga ooli jiray aseeftu kaas ku dhuftay iyadoo nebi maxamed difaacaysa calayhi salaatu wasalaam haweenku ka mid baa ahaayeen mumaridaat raaca nebi maxamed oo leh ilaahay rasuulkiisa iyo dagaalkaanu kula gelaynaa wuxuu ku yidhi idinka alla idinkuma waajibin idinku jihaad kala leediin xajkiina iyo cimradiina iyo arrimihiina qabsada buu ku yidhi waxay dhahay ma waa ku raacaynaayo ka bukaanu kuu daaweynaynaa ka nabarku ku dhacaanu qaadaynaa ka biyaa u baahan baanu biyaa si logisticska waxa la yidhahdaa ciidanka ayaanu ka adagna bay yidhahdeen haween nabiga raaci jiro logisticska ka qayb geli jiray baa jira yani marka aan qadiyadda ka warramayo idin leeyahay ra'yiga reer galbeed aan radinayno natiijadiisa tilmaamayno ma lihin gabadhu shaqo kalaba ma qaban karto taa maaha waxaynu wadnaa waxa weeyaan bulshada sidoo alla u abuuray subxaanahu wa tacaala ee saliimkaa inay u dhaqanto inaan la dacaayadeyn ama la maagin tan wax dhalaysa ilmaha korinaysa shaqadii ugu fiicnayd bay haysaa kama shaqo fiicna inanta injineeradda ee dabaabadda samaysay kama shaqo wanaagsana bulshada dhexdeeda gabadha 4-5 caruura dhashay korinaysa kama shaqo fiicna bulshadana ugama waxtar badna walidaalika waxaan leenahay gabadha muslimadda ah shaqadeeda koowaad ee mucaasirka ee wakhtigan joogtaa waxa weeyaan kow inay rabbigeed caabudo laba hadday guri leedahay dee ninkeeda inay ateecdo 3 ilmaha ay dhasho inay koriso si fiican u koriso in la koriyaa cilmi u baahan yahay hooyo aqoon leh ilmahay korisay iyo hooyo aan aqoon lahayn ilmahay korisa isku mid noqon maayaan waxa laga yaabaa dadku inay yidhaahdaan haddaa maxaa wax laga baranaya haddii ilmuhu la korinayo oo ilmaha ma waxaad u haysataa in jahli lagu koriyo lagu beero oo lagu dhalo maaha aqoon gaadhiga lagu sameeyo aqoon ka badan buu u baahan yahay aqoon bini aadam lagu kobciyo lagu koriya inaad qof bini aadama koriso kobcisaa
aqoon bay u baahan tahay sida ta injineeradii aqoonta ugu baahan tahay idan humanka inaad barato qofka bini aadamka ah waxaan leenahay markaas ilaahay in la caabudo waa waxa koowaad ninkeeda inaad adeecdaa waa laba saddex bulshada shaqada ugu weyn ay u haysaa waxa weeyaan inay ilmo dhasho oo koriso oo kobciso afar waxaan leenahay markaa wixii kale bulshadu afar diinteeda inay wax ka qabato oo ummadda kale diinta gaadhsiiso daaciya ahaato dacwadeedana ay ugu horeyso risaaladan ay faafinayso ee ay asturkeeda iyo xishoodkeeda iyo xishmadeeda ku faafinayso shan waxaan leenahay markaa bulshada wixii kale ay uga baahato ay qaban karta ha qabato dumarku dhakhtar bay u baahan yihiin waa loo baahan yahay dumar dhakhtarraa dumarku waxbarashay u baahan yihiin waa loo baahan yahay cid waxbarta dumarku culum bay u baahan yihiin waa loo baahan yahay dumar culamo noqda waxa laaliya bulshadu qayb dhan oo bulshada ka mid ah bay u baahan tahay shaqada marka ay gabadhu qabanayso waa inay u qabataa shaqadeeba bulshadana u faa'iido badan aakhirana ku ajar badan ilaahay inaad wax kaga helaysa inaad xabad computer samaysaa waxa laga yaabaa inay ka ajar badnaato inaad dad daaweyso ama aad caruur wax bartid macallimaad noqotid waxaan leeyahay shaqada qofka gabadha ee muslimadii qabanaysaana waa inay fitradeeda mid waafaqsan ay tahay fitrada ilaahay ku abuuray ilaahay rag iyo dumarka isku si uma abuurin walidaalika kuwii isdhinac ceriye wax kasta waxay dhahdeen maqaayis kala go-an ha loo sameeyo ay dhahdeen riyaaday u baahantay gabadhuna ha baratanto ninkuna ha baratamo haye maya laakiin la baratansi maya gabadhuna gabdhuuna hala baratantona ninkuna nin hala baratamo dee mar haddaad baratan keentay ama wada baratansi ama qof waliba shaqadu qabanaya ha qabsado waxba ugama baahna waxaynu leenahay markaa haweenta muslimadda ah ee casrigan noole risaalo xoogan baa saaran waayo casrigani wuu ka fitna iyo imtixaan badan yahay cusurtii hore maanta adigoo aan dabadu bixin oo meelna tegin ayaa wiil maraykanka fadhiya ama london fadhiya gurigaaga waxa lagaga dhaqmo uu tawjiihiya la soo dhaaf iskuul iyo meel aynu dhahno dad baa lagu bari waxaas ma jiraan waxa la rabaa gurigaaga siduu u eg yahay in london looga taliyo alaabtaad iibsanaysa london baa laga xayaysiiyaa guriga sida alaabta loo dhigdhigayo london baa lagaaga xayaysiiyaa TV-ga guriga la dhiganayo london baa lagaaga xayaysiiyaa gurigaaga waxa yaalla qaabku egyahay haddaan guryaheena dib ugu noqono dhammaanteen wiil yaroo london ama new york ama meel kala fadhiya ayaa design gareeyey siduu egyaynana waa ku raacnay waayo TV-gu ka soo baxay bale imika waxay maraysaa awal ummaduhu waxay lahaan jireen cunno kala gedisan oo dhadhana inay layna baro kijada sida wax loogu kariyo oo laynoo baro sida iyagu wax u karsanayeen marka imka reerku ka lacag badan yahay wuxuu rabaa qalabka guriga yaalla ee kijadu inuu ekaado kii galbeedka yaallay si loo samayn karo TV-ga waxa ka soo baxay wixii galbeedka lagu cuni jiray anu kama warramayo idinma lihi cunnadu inay cunno u ekaato xaaraan weeyaan idinma lihi laakiin waxaan idin tilmaamayaa sida la rabo in laynoo hogaamiyo aynan inagu waxba u yeelanin waxaad cunaysay waxaad huwanaysay waxaad guriga dhiganaysay si aad u noolaanaysay lifestyle-kaaga noloshaadoo dhan waxaa la rabaa in la hago adnaad sidii neef xoolaa daba socotidu design cusub baa soo baxay haye maxaynu samaynaa sariiraha ha la bedelo kabadhada ha la bedelo heblaayo adigu kuwii berigii hore dadku ka baxay baad haysataa hadda kuweeda waa iskaga seexataa belo kuma qabto laakiin waxaa laynaga tawjiihiyey TV-ga iyo intan bahalka ku jirta iyo nimankan baa mushtarkay waxooda shaqaysanaya waxaan rabnaa gabadha muslimadda ah inay identity-geeda yeelato ID-gu muxuu sheegaa kaadh yaro ID soo ma wada haysataan ID-gu wuxuu sheegaa qofkaa tahay heblaayo hebel oo daadeedu intaa tahay oo waqtigaa dhalatay oo magaalo heblaayo ku dhalatay oo nationality-ga leh intaasuu sheegaa waxaynu u baahanay your islamic ID inuu kaa muuqdo ID-gaaga marka kor loo qaado inay ku qoranto heblaayo hebel oo ilaahay abuurtay oo addoon ilaahay oo aakhiro rajaynaysa inuu ka soo baxo taasi waxay u baahan tahay tale iyo fikir iyo qaab loo noolaado
waxay u baahan tahay inaad yeelato shakhsiyadaada inaan cid kale ku hagin ee adiga diintaada iyo ra'yigaagu inuu ku hago maxaad u baahan tahay inay ku hagto maxaa suuqa soo baxay maaha waa adigu maxaad u baahan tahay waxa laga yaabaa guryaheena haddii lagu noqdo kabadhanoo bakeeriyaal ka buuxaanan weligiiba biyo lagu cabin inaad aragto waayo stylkaa caynkana in inta halkaa lagu guro in inta halkaa lagu guro inta saa laydhaa waa gurigu designkii loo design gareeyaa nooca kana waxay ahayd adiga iyo materialka waxaa idinka dhexeeyaa inuu noqdo waxaad u baahantahay maxaad u baahantahay wixii aad u baahantahay gado wax kastaba ha noqdo waxaanad u baahnayn yaan lagu marsiinin iska dhaaf wixii dantaada kuu samaynaya technologyga niman ka shaqaynaya waxay rabaan maalin walba wax cusub ay soo saaraan waayo waxaa la rabaa in maalin walba lacag la helo bahalkan yar horteyda yaalla waxaa laga yaabaa shaqadan u baahnay inuu qabto laakiin barraa tv-ga laga xayeysiinaya mid 200 gigabyte soo baxay oo bahalkiisu inta iyo caynka iyo markaas oo waa sheekhtay adigu kii hore seetay xabadka dambe aan ku siino xabadka dambe maxaan ku qabanayaa anigu waxbaan qoraa karina waxay uu qoraa waxbaan qabtaa kani wuu qabtaa qofkii isweydiinaya war waxaan shaqadayda aniga way qabanayaa maxaan ku falayaa waxa kale idan waxaan leenahay gabadha muslimadda ay ha barato nolosha inay muqtasid noqoto inay nolosha waxay u baahantahay ka qaadato inay nolosha isku rarin waxaanay u baahnayn waxa laga yaabaa waxaan biilku ku filaan waayay ee odaygu u daalay ee adigu aad u daashay waxaan inay tahay unnecessity waxa reerkuba u baahnayn wixii reerku u baahnaana waxa mashquulkooda inuu ku dayacmaa baa laga yaabaa caruurtii iyo dadkii iyo wixii aad korin lahayd wixii aad u baahnayd ee waqtigiina inay gelisaan waxa laga yaabaa inuu wax dheeraada gelayo marka qodobka ugu dambeeya aan idin tilmaamaya waxa weeyaan gabadha muslimadda waxaan ka rabnaa casriga nooli inay ID-geeda yeelato identity-geeda inay yeelato inaan meel kale looga talin ama TV ha ka warramo ama jaridada ka warramo ama jaamacad ha jooga ama wuxuu doonaa jooge qofka muslimka ahi inuu diintiisu waxay u sheegtay iyo ra'yigiisa iyo baahidiisa inuu ku dhaqmo waxaan u baahnahay waan gadan waan qaadan nolosha wixii aan uga baahnay wixii aanan u baahnayn waxba isku rari maayo qiimana ma samaynayso waxaan ku koobayaa marka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka dumar badan buu kaga warramay almar'a almuslima maanta nool waxay leenahay doorkay nolosha ku leedahay waa kaa qur-aanku uu ka warramay doorkay ku lahaayeen ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramay gabadh fircoon qabay xaaskiisii oo iyadu muslimtay oo fircoon dadka wuxuu ku harowsaday baa ilaahay yidhi markuu muuse rabay inuu dadka kala hadho alaysa lii mulku misra wahadihi lanhaaru tajri min taxtii buu ku faanay war miyaydaan arkaynin boqortooyada masar oo dhan inaan leeyay iyo webiyadan hoosta dareeraya waxaan oo dhan inaan uga haysto iyana maxay ka doorbid rabbi ibni lii baytan fi ljanna wanajini min fircawna wacamalihi boqortooyadan iyo waxaan hoos yaalla iyo webiyadan dareeraya waxaan oo dhan inuu adaan kaa doortay bay leedahay ee guri jannada iga dhis ilaahay subxaana wa tacaala gabadhaa wuxuu ka dhigay qur-aan la akhriyo ilaa qiyaami saaca waa maamuus in rabbi ku magacaabo oo ku sheego dhaqankaad samaysay oo ilaa qiyaami saaca muslimka nool la yidhaahda waxaad ku wardinaysaa imra'atu fircawn warkeedaad ku wardinaysaa ilaahay ugu dhowaanaysaa waa manzila sarraysa in qof dumara oo qarnigii fircoon noolaa la noolayd soo hadalqaadkeeda iyo qisadeeda ka sheekaynteedu ay noqoto wardi ilaahay loogu dhowaado qur-aan oo la akhriyo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa haweeney karaamaad intuu ka dhacay nebigii uu iyada ku dayday waxay culammadu yidhaahdaan raashinka ugu imanayay muu ahayn raashin xataa qofku uu garan karo in suuqa cidi uga keento oo cidi siisay waayo bay yidhaahdeen raashinuu ku arkaya calaamadii wakhtiga baan lahayn yacni maalan midhaha beeraha midhahoodu qaarna qaboobuhu go'a qaarna kulayluhu go'a kulaylaha waxa go'a maalan timirtoo kale timir qabooba go'daa ma jirto dee waagii horena dhul wax lagu kaydiyaa ma jirin haddaad qof winter joogo timir haysata u timaado aanad ogeyna timirun meel dhiga ama wixii soo go'i jiray midhihii jiilaalka soo go'i jiray aad ugu timaado qof xagaagii haysta
waxaad garanaysaa inuu wax kale yahay waxa kale walidalik ayuu wuxuu ku yidhi maryamay waxaan xaggaad ka keentay waxay ku jawaabtay in allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab yani waxay tilmaamaysaa gabadhan intay cibaadaysatay cibaadadeedii inay xad karaamo gaadhay intay cibaadaysatay ayay cibaadadeedii noqotay maxay ilaahay subxaana wa tacaala uu karaamo ka muujiyey karaamadeedii baa ilaahay qur-aanka ku qoray markaasaa weliba lagu qoray inay nebi dhan ku hunguraysay inuu isna ilaahay dib u baryo hunaalika dacaa zakariya rabba baa ilaahay leeyahy markuu arkay gabadhan ilaahay siduu u karaameeyey oo waxaan wakhtigeediiba hayniyaba ay helayso iyadoo shaqo tegin ay cunno helayso ayuu isna ilaahay baryey isagoo le ilaah waan gaboobay islaantiina waa gaboobday ubadna waan doonayaa isaga iyo xaaskiisiiba gaboobay ayuu barye ilaahay u dhaqaaqay ilaahay baa isna ilma siiyey idan waa qur-aan ilaa qiyaami saaca la akhrinayo qofkaa dumaray iyo camalkeedii ilaahay nooga warramayo tii ilmahay dhashay iyo kalsooniday ku qabtay iyo ilaahay siduu u difaacay waa qur-aan ilaahay ilaa qiyaami saaca ka warramayo ismaaciil iyo hooyadii iyo haajara iyo kacbada dhisideedii iyo waxa kan ilaahay islaantaasi halkay ororoday buu yidhi anaa laygu caabudayaa iyo sanadkii intaad mar tagto waa inaad soo ororodaa asacyu bayna safa walmarwa waa islaan harraadanayd meel ay oroday socankaa ma aha laakiin waa qof dumar oo dhaqan ah inay kalsooni ilaahay ku qabtaa muujisay odageedii intuu lama degadejiyey uu iska dhaqaaqay ay tidhi ma ilaahay baa ku faray inaad cidlada igaga tagto uu ku yidhi haa iska tag bay ku tidhi haddaa ilaahay anigay dayici maaye haddii ilaahay baa amray bannaan cidlaa intaan fadhiisto inaan isaga sidaa ku caabudo iska tag bay ku tidhi meelaan bini aadam maki may ahayn meel bini aadam ku noolyihi qarbad yaroo biyo ah iyo qarbad yaroo timira sibraar ama qarbad ama waxdhe harag yaroo biyo ku jiraan iyo in timiri ku jirto uga tagay markiiba waa dhammaatay markay harraadayna halkaasay ororoday ilaahay baa ceelka ilaa maanta laga cabiyey zamzamka la yidhaahdo islaantan karaamo u siiyey waa karaamo qof dumar ah oo ilaahay ka cabsatay subxaana wa tacaala bal ilaahay baa wuxuu leeyahy ina safa walmarwata shacaa'ir ilah baa ilaahay yidhi islaantaasi labada buurood ay dhex oroday waa shacaa'irta ilaahay subxaana wa tacaala meesha bale waa ruknun min arkaan alxaj xaj idinka asixi maayo baa la yidhi islaantii harraadaneed halkay orodo inaad oroddo mooyaane idan risaaladaan idiin dhiibaya waxay tahay nebiye may ahayn dumarkan aan ka warramaya idinkamanay gedisanayn waa dad idgoodii aqbalay kumaan ahay bay aqbaleen inay gabadh muslimada tahay oo rabbigeed rumaysan tahay bay raacday wixii hareeraha lagaga akhrinayay may dhegaysanin wixii rabbi u sheegay intay ku dhaqantay ayaa ilaahayna karaameeyey oo sharfay oo weli ka dhigay oo karaamaadkaasi ka dhaceen idan gabadha muslimadda waxaan leeyahay rabbigaa caabud ku xidhnow idgaagaa sido bulshada waxaad u qabataana waxaa sharcigu kuu baneeyey ha noqoto sala allahuma cala nabiyi muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam